بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ركن شناد وحوية الإيمان باليوم الآخر. رميت الرمين يوم مالنت الدنباء. مالنت الدنباء وركن شناد إلا الرميو ويان مركب مالنت الدنباء ركن شناد أركان الإيمان ويان. يوم الآخر وحلولت كذا ومالنت الدنباء. فيكون غير السامر كله معنا لكن وحلولت كذا maalinta dambe waa maalinta qiyaamaha maalinta dadku isu soo taagi doonaan qabuuraha ka soo kici doonaan rabbi maxkamadiisa iman doonaan yawma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalinta adduunkani markii uu dhammaado adduunkani waa iska soconayaa calaamadaha ka horeynaya qiyaamaha intuusan dhicin calaamadii waaweynaa tobankaa ku yareeraa inta badan hadda waaba dhaceen kuwii waaweynaa sidii tusbax furtay oo kale dabada isku qaban doonaan haddii alla ku yahay dajaal cawar iyo nuzuulu ciise soo degi doono oo samada ku nool oo si saxiix ah diinta islaamka ku maamuli doono marka dambe dajaal cawar dili doono yaajuuj wa maajuuj oo meel adduunka ku xaniban oo soo bixi doona calaamadii faraha badnaa marka dambe qoraxda halka ka soo bixi doonto tobanka ah tobadana la xidhi doono calaamadahaas markay dhacaan adduunkan waxa weeye marka u dambaysa qoraxda ka soo baxdo adduunka laga gabagabeynaya adduunkan oo dhan waa la bedelayaa waa la burburinayaa badihiisa iyo buurihiisa iyo banaankiisa iyo godadkiisa wayasaluunaka cani ljibaali buuraha say noqon doonaan bay ku weydiinayaan faqul yansifuhaa rabbi nasfa fayadaruhaa qaacan safsafa laa taraa fiiha ciwajan walaa amta hawadaa la barinaya buuraha waaweyn arkaysaan bannaan baa dhulka laga dhigaya meel godan iyo meel taagan yeelan maayo wixii qabuuraha ku jirayna waa laga soo saarayaa oo dadkii iyo wixii kula ku asnaa maalintaas rabbi la is hortaagi doono oo xisaabta iyo abaalmarinta loogu talagalay ee qur-aanka iyo axaadiista nebiga iyo ummadihii hore oo dhan isku raaceen ehlu kitaabka ahaa maalintaasa waxaa la yidhaha maalinta dambe ee aakhiro maalinta sida loo rumaynayo waxa weeye maalintaas inay jirto waa inaad rumaysaa oo lagu xisaabin doono ilaahay hortiisa lagu geyn doono wanaag haddaad samaysana wanaagga lagu abaalmarin doono wax wanaagsan heli doonto xumaan haddaad samaysana xumaanta lagu abaalmarin doono janna inay jirto miisaan inuu jiro xisaabi inuu jiro waxaasoo dhan waa inaad rumaysaa marka maalintaas rumaynteedu waxa weeye waxay ka bilaabanaysaa ama maalintaas waxay ka bilaabataa baa la yidhaahdaa dee markaad geeriyooto caalam albarsakh qabriga adiga qiyaamahaagii halkaasuu ka bilaabanaya qiyaamihii weynaa intaan la gaanin markaad geeriyooto wixii la sheegay inay dhici doonaan cadaabalqabrigii jannatulqabrigii waa in la rumeeya yacni waxa weye qabriga marka laga soo kaco maxsharka xisaabta miisaanka jidka siraad jannada naarta wax alla wixii qur-aanku sheegay ama axaadiista saxiixa ee nebi moxamed ka sugnaatay ay sheegtay inay xaq yihiin waa inaad rumaysaa aadan ka shakiyin inaadan ka shakiyin baa loo baahanya qiyaama marka rumayntiisu waa sidaas maxaa yeelay qiyaamaha qofkaan rumaynin dee dhibaato badan buu la kulmayaa waxaa la yidhahdaa kaflad ayaa qofkaasi ku dhacayaa baa la yidhaahdaa qof wax moog buu noqonaya waxba aan la socon oo camalkiisa aanu aabba yeelin maxaa yeelay xisaab dambe iyo meel kaloo ka dambaysa iyo abaalmarin uu rajaynayo iyo wax dambeeya kuma xisaabtamayo saa daraaddeed dadka gaalada maanta aan aakhira dhaba u rumaysnayn noloshan adduunyada markay ku dhibtoodaan meel ay dhibka kaga bixi doonaan iyo janno iyo naar iyo abaalmarin iyo midna aysan aaminsanayn iyo meel kale oo ka dambaysa maadaama ay aaminsanayn waxay door bidaan inay nolosha isdhaafiyaan inay isdilaan sun isa siiyaan xabad isku dhiftaan ayay door bidaan si adduunka xanuunkiisa isu dhaafiyaan waxaana keenaysaa caqiida xumada marka daarta aakhiro waa midda dhabtaa wey waa nolosha weligeed aan laga dhimanayn adduunkan haddaad ka dhimato qof kastow dhimasho dambe ma arkaysid laba mid un bay noqonaysaa inaa ehlo janno noqoto ilaahay naga yeel kuwaas weligaa ka dhiman maysid gabow dambe dhimasho dambe meelaad ka suulaysa maaha barwaaqo meesha u dambaysay iyo raaxo meesha u dambaysana maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khatara calaa qalbi bashar siduu nabigu sheegay waxaan dhegi maqal ila arag qalbi bini aadana ku soo dhicin ayaa kaa horeeya
naar haddaad gasho laba mid bay noqonaysa inaad tahay gaal oo gaalnimo buuxda ku sugan gaalnimadu midab cad ma ahe waxa weeye qof kasta oo wixii lagu gaaloobayay la yimaado oo gaalooba hadduu sidaa ku dhinto isagoo toobadkii naarta ku waaraya waa la isku raacsanya culamada weligii ka bixi maayo hadduu ehlu tawxiid yahay laakiin macaasi iyo dembiyo isagoo sameeyey uu dhinto taxta mashii'ati illaahi buu hoos yaallaa ilaahay doonistiisa hoos yaalla hadduu doono ilaahay waa cadaabaya oo muddo cadaabta uu ku jiraya kadib uu ka soo saaraya hadduu doono siyaabo kale ilaahay u cafinaya ilaahay bay subxaanahu wa tacaala taasi u taallaa laakiin qofka gaalnimo ku dhintaa naar weli ka bixi maayo bilyan sano trilyan sano hadduu ku jiro naartaas ku jiraya bal ayaan darada ku soo socoto bini aadamka iyo waxa aysan maanta ogeyn dhimashada aan la iska dhimanayo waxa weeye wax sahlan maaha maanta qofka dhintaa soo noqon maayo fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir wax ka dhexeeya ma jiraan ama naar baad geli ama janno waxaantaa la rabaa in la shaqaysto marka runtii arrintaas muhiimad weyn bay leedahay waxaan ku soo gaabinayaa waxa weeye maxaa raad ka dhalanaya ama miro ka imanaya rumayntan aakhiro rumeeya maxaa laga helaya maxaa faa'iida laga helaya kow waxaa laga helayaa horta raad xeel dheer rumaynta aakhiro raad xeel dheer ayay ku yeelanaysaa nolosheenna maxaa yeelay qofku wuxuu rumaysnaanayaa isagoon bini aadan ka biqin boolis ka biqin nabadsuul ka biqin sirdoon ka biqin kamarada inay eegto ka biqin kamaradii ilaahay buu ka baqayaa malaa'igta wax ka qoraysa ilaahay oo daalacanaya wax walba in lala socdo buu ogaanaya yuraaqibu allaha fii afcaalihi afcaashiisa iyo aqwaashiisa ficilkiisa iyo qowlkiisa ilaahay buu iska ilaalinaya subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dadaalayaa inuu sameeyo wixii ilaahay u dhowaynin lahaa subxaanahu wa tacaala inuu ka dheeraado wax alla wixii ilaahay ka fogeyn lahaa jannadiisa ayuu rajaynayaa inuu galo maxaa yeelay aakhiro inay janno jirtuu rumaysan yahay qofka aakhiro rumaysani wuxuu noqdaa qof degan oo qalbigiisu degan yahay maxaa yeelay ilaahay wuxuu u sheegay buu raalli ku yahay ilaahay buu ka baqayaa wuxuu og yahay adduunyada tani inay tahay wax laga tegayo wuxuu og yahay abaalmarintu inay dambayso oo weligeed waxa weeye aan laga dhimaan doonin wuxuu og yahay qofka muslimka ah uu maskaxda ku hayaa adduunkan wixii ku seega aakhiro inay uga horeeyaan u heli doono qodax hadday muddo qofka nib waxay noo sheegtay axaadiistu diintu qodax hadday muddo welwel hadduu qabto hadduu kufo hadduu turoodo wixii ku dhaca ajar iyo xasanaad baa looga qoraya adduunkan wixii ku seega aakhiraad helaysa wax alla waxaad adduunka aad jeceshahay inaad hesho meesha aad waxba ka waayin waa aakhiro aakhiro qofka markuu tago waxaa loo leeyahay tabani jeclayso maxaad rabtaa qalbigaa ku qabso waxaas wixii horeeyo waa imanaya adduunka taasi ma taalo adduunka qofka ugu hooseeya jannada ugu darajo hooseeya waxaa la sheegay adduunyadan aan ku noolnahay tobolaabkeed iyo wixii naftiisa jeclaato ayuu helaya kii ka sarreeyana iska badaa waa qofka ugu darajo hooseeya jannada qofka ehlu naarka ugu hooseeyana waxa weeye waa nin rays magaadhada halkaas cagta dhuxul laga saari doono naara oo maskaxdiisu ay karkari doonto sida dheriga oo kale kulaylka dhimisha waa ka ugu hooseeya xagga cadaabka ahlu naarka gaalada ah waxaa loo baahan yahay aakhiro in loo diyaar garoobo adduunkana laga tegaya la camal fasho la tukado xaqa ilaahay ka soo baxdo xaqa makhluuqa aad iska ilaaliso xaqa qaraabada iska ilaaliso aadan dulmi samayn aadan xaaraan samayn aadan ilaahay xumaan la hortegin waqad khaaba man xamala dulma waxaa hoogay aakhiro ninkii dulmi la hortaga waxaa loo baahan yahay aakhiro in loo diyaar garoobo ujeeddada aakhiro u sharxayno ama loo rumaynayo ama rugl looga dhigay waxa weye nolosheenoo dhan baa ku tacawuda bini aadankan dhibaatada samaynaya hadday dadku aakhiro rumeeyaan in badanoo ka mid ah si otomaatiga ayay u hagaagayaan uma baahna askar iyo ciidan iyo ciday ka baqaan inta kale ee dabdarrada wada ee aan iyagu aakhiro rumaysnayna waxaa loogu talagalay cuquubaad in sharciga la hor keeno in la ganaaxo in la xanuunjiyo in ciqaab la marsiiyo si aysan adduunka u fasahaadin maadaama aysan ilaahay ka baqayn inta kalena ilaahay bay ka biqi lahayn wax maxadeen
وحمل دلين وحما وحال أينو لا أنا ما أنت وحوي الله كعبسي يا آخرة إلا الرمية لا لا وح نبى تضع أينو عيسى إيمان كيني ضعيف آخرة دي الرمية لهين هي ضعيفة إلهي أنا قالوا هو آخر الرمية إلهي خاتمونا أكثر نقول له آخرنا ميل ونكسر إلهي نجيو هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد.